subscribe leh because of the akhbaarta caalamka dhan baad heli Soomaalidan garan waxa la war la helaa tala la helaa Soomaalidan garan marka inta waxaan ku darayaa mar kale haddana waa third time waa markii saddex fariyarada u adiga maxaa ka galay subscribe ku dhadii Soomaalidan garan ila liqa أنا ما سنتي هذه كلية مركز وايد كلمة علنايا أنت سكدي ما أنت إذا كدولة سوماليا جارهان قيمة الدولة تنادوا حي دجان كقارين دجان أو حي دجان كثير سن دجان بالعدو كم دجان كياقله رنتي دجان كاس إذا كقارين وحوجود هنا ميليشيات الشباب يسكوا بقولي دجان كاس تسي أو دجانله أما قلاسو جيستان دجان كثير سن شيء شغله ciidanka dawladda waxay tageen goobtii deegaanka Yaaqle waxaana ay dagaal iska caabina kala kulmeen kooxda maleeshiyaadka al-shabaab waxa halkaasi shabaab loogu dilay ka badan 12 ruux oo isugu jira saraakiil iyo ciidan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab dhinaca kale ciidanka dawladda Soomaaliya waxa soo gaaray dhaawac fudud oo qaar ka tirsan saraakiisha ciidanka dhaawac fudud soo gaaray haatana waxa gacanta deegaankaasi waxa gacanta ku hayay ciidanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta 20 ee Hirshabelle ka howlgasha marka dhimasho ma jirto xagin حقيقي واحد مشاع وكجرا xilligan ciidamada maanta dagaalka wuxuu ahay ku qaaday deegaanka Yaaqle ma jiraan waxaan aad ugu xunaanay bahda saxaafada qaarkood oo baahiyay warar ay ku sheegayaan in la dilay saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka dawladda waxaan aad ugu xunahay in xilligan lagu jiro ay idaacadaha qaar baahiyaan war ay al-shabaab ka sheegteen idaacadaha ku hadla afkooda arintaas maadan marka taa waxbaan ka dhihi doonaa waa kugu soo laabanaa mid laakiin wadarta guud dhimashada markii al-shabaab dhankooda iyo dhanka ciidamada Soomaaliya militariga weerarka qaaday ah la isku diro ayaa 12 la gaarsiiyay adiguna waxa leedahay al-shabaab kaliya 12 ka dilnay dhankeena waa dhaawacyo marka wax cadeyn ama la wadaagi kartaa arintaasi waxaan ku cadeynaynaa saraakiisha goobta joogay inoo xaqiijiyeen in 12 ruux oo ka tirsan al-shabaab meedadkooda ay kortageen marka dagaalku dhamaaday kadib dhinaca dawladda Soomaaliya sidaan hore kugu sheegay dhamaantood ciidanka waxay soo gaareen waa dhaawac fudud ma jiraan wax dhimasho qaar kamid ah ciidanka dhaawacmay waxa dhaawac aad u fudud soo gaaray waxa lagu daweeyay magaalada Jowhar caasimada Hirshabelle oo la soo gaarsiiyay wax kale oo qasaare oo soo gaaray taliya waa waxa cadayna ma haysid kulli waa wixii ay saraakiisha ku sheegeen dadka dhaawacmay oo dhankiina ah waxa ku jira taliyihii howlgalka hogaaminaya Korneel Cali Arif oo guutadaasna amaan duula u ahaa Soomaa wanaagsan dhaawac waa jira waxaana qaybkaas Korneel Cali Khaliif oo san dhaawac soo gaaray iyo rag kale oo ka tirsan askarta laakiin dhaawac aad u fudud waxaan rajaynaynaa in Allah uu bogaadiyo samarkaana ay dib u galaan hawshooda diyaar la yiraahdo dhaawaca Korneelku waa dhaawac culus lagu yiri oo aad buu daran yahay arintaasi la hadda jawaab sax ma ka siin karno waxa uu ku jira goobta lagu daweynay waxaana warka sugeynaa dhaqaatiirtii dadka ku howlna arintaas warka sugeynaa diyaar la yiraahdo inuu fudud yahay ku ogaato wali dhaqaatiirtu ma hadlin xaaladu ku jira dadka qaado waxay sheegeen dhaawac culus yahay inta uusan galin xaaladaas ayaan ku muxuu ahay waxa kortagay dhaawaciisa rag ka tirsan saraakiisha oo dagaalka muxuu ahay kula jiray waxayna xaqiijiyeen dhaawaciisa oo mid fudud isla markaana hadda lagu howlan yahay in wax lagu qabto hadii la yiraahdo la rajeynayo dib u soo buuxsado insha Allah warbaahintu waxa tir waxbay naga sheegeen idaacado iyo xarumo kale oo warbaahiyay waxay yiraahdeen al-shabaab waxay sheegteen inay dileen korneelka iyo xubno kale al-shabaab waxay sheegteen in la sheegay ma qalad bad u aragtaa runtii anaga ku hadlayno wasaaradda warfaafinta Hirshabelle waxaan aad ugu xunaanay in saxaafadda qaar ay xilligan baayso war ay shabaab ka sheegteen afkooda ama idaacada ku hadla afkooda xitaa hadii ay saxaafadda ay agaasime waxa ahaan jirta nin wariye ah warbaahintuna waa taqaanay xeerarkeeda haddii xaqiiqada iyo wixii ogyiin warbaahintu ay sheegaan al-shabaab wixii ay sheegteen la sheego idinka waxa sheegteen la sheego maxaa dhib ku waxaan jeclaan lahayn marka warkaas la sheegay in la xiriir dhinaca kale dawladda isla markaana fursad loo siiyo laakiin marna ma filayn in xilligan saxaafadda qaar ka tirsan bada saxaafadda ay baahiyaan war ka tirsan ama war ay sheegeen rag ka tirsan al-shabaab ay sheegeen iyagoo aan la xiriirin hadda dhinaca kale si loo ilaaliyo balansiga warka aadaan ugu xunaa arrintaas ana cabaaraynayna Ramadaan weeye waa bil cibaado al-shabaab muddo sanada ay balcad iyo Jowhar inta u dhaxaysay iyo deegaanadan hadda aad weerarteen ay joogeen maxaa Ramadaan ku weerartagteen oo sanadihii iyo muddooyinkii fogaasho halka ay joogeen aad uga adkaan weydeen ama aad u weerar weydeen muddooyinkii ugu dambeeyay xamar waxa ka socday Hirshabelle abaabul xoogan oo ciidanka dawladda iyo Hirshabelle ay
ugu go'aansanayeen sidii wadadaas muxuu ahaa sometimes dagaalada weerarada ay geystaan al-shabaab loogu saari lahaa mana jiro deegaan u dhexeeya jowhar iyo balcad oo shabaab haysteen keliya shabaab mararka qaar ay weerar geysan jireen runtii maalmihii ugu dambeeyana fariismay ka samaysteen ramadaan ka hor ayaa la bilaabay howlgalkan maantana dagaalkan sidaan kuu sheegaba toddobaad ka hor al-shabaab lagu dhabarjebiyey al-shabaab weerar ay soo abaabulayeen toddobaad ka hor al-shabaab balcad iyo jowhar inta udhexeyso bar control oo gaadiidka iyo dadweynaha ku baaraan bay ku lahayn sooma oo ay lacag ku qaadaan ma jirto haba yaraatee wax bar control ah balse waxaa jira rag ka tirsan al-shabaab oo si dhuumaaleysa ku imaanaya deegaano ka tirsan jidka udhexeeya qalimow iyo balcad kuwaas oo umada baadayay kana qaaday lacaga dheeri ah dhibna ay ku qabeen shacabka waana laga xoriyey maalmihii ugu dambeeyey shalay ugu dambeysana dowladii oo idilaa waxay tagtay deegaanka balcad si markaasi ay uga qayb qaataan xoreynta jidkaasi udhexeeya qalimow iyo balcad wax ka badan 2 sano ayaad ku haysaan balcad iyo jowhar inta udhexeysa al-shabaab aan ka xoreynay waan durjinay waan laynay mar kastana waa soo laabataan al-shabaabna way yimaadaan maxaa macno ah ayaa ku jira agaasimo inaad weerar qaadaan oo dad ku dhinto dad ku dhaawacmo kadibna aad soo laabataan oo shabaab halkoodii yimaadaan runtii waxaan kuu sheegayaa al-shabaab ma ahan dad awood u leh inay hor istaagaan ciidanka dowladda balse ragga aan sheegayno waa rag 4 nin 5 nin oo muxuu ahay baacsada shacabka ee dadka masaakiinta ee jidkaas maraya al-shabaab uma wax dhigi karaan marna ciidanka dowladda Soomaaliya waxay ku maraan laakiin 4 nin iyo 5 nin aanan ciidamada dowladda u babac dhigi karin Soomaaliya waxay ku guuleysanayeen balcad iyo jowhar inta u dhaxaysa aanan la marin oo idinka gooyaan ciidanka dowladda si rasmi ah si nabad ay ku maraan xilli kasta way jiraan mararka qaar inay si muxuu ahay weeraro fulinimo ay ku soo qaadaan ama miinooyin wax lamid ay shacabku dhigaan waxaad ogtahay in dad badan oo shacab ay jidkaasi ku dhinteen iyagoo muxuu ahay ku geeriyooday ama sababsaday gacanta al-shabaab miinooyin iyo wax xaqar ah ay halkaas geliyeen marka ma dhigi karno jidkaasi muxuu ahay guud ahaan shabaab ayaa gacanta ku hayay arrintaasna waa muxuu ahay iyada laftirkeeda muddo badan aan ka hadalnay jidkaasi ciidanka dowladda nabad ay ku maraan wayna ku marayaan markastana al-shabaab haddii la yiraahdo waxaa lagu tegi doonaa goob kasta ay ugu sugayeen Hirshabelle haddii la yiraahdo waxaa tiri al-shabaab way soo gali jireen oo fariiso kuma lahayn ciidamada dowladda nabad bay ku maraan say isu dhaxmaraan marka haday shabaab soo gali jireen ciidamada dowladda nabad ku maraan meesha sidaan ku sheegay al-shabaab waxay baacsaan shacabka iyo gawaarida shacabka ee halkaas marna uma wax dhigi karaan ciidanka dowladda marka ay kolay ku socdaan ay u socdaan deegaanada Hirshabelle dhex socdaan ama ay u socdaan jidkan xamar iyo balcad marna al-shabaab ma hor istaagi karaan sidaan hore kugu sheegay kaliya waxay baacsaan shacabka marka ay ciidanka dowladda yimaadaan oo isaga carraan goobaas